halkani waa alxaqiiqa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. talada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa dowladdii Somaliland oo afkeedii uu ku hadlayo wasiirkii daakhiliga Cabdulla Sandere oo wixii dowladdu ay ku kacday qaldanaayeen uga digaynay ee uga ka abhinaynay haddana dafirtay. kaasuu barnaamijkeenu daaray. aan bilaabay sidaa la socotaan dee waxaynu dooranay madaxweyne. dowladdii hore iyo madaxtooyadii horena dee madaxweyne baa ka talinayay, madaxweyne labaad kama talinay. sidaa imika laakiin muuqata, waxaa muuqata in taladii iyo awooddii madaxweyne cid kale isticmaalayso. tusaale ahaan imika wuxuu inoo sheegay Cabdulla Sandere wasiirkii amniga ah oo wasaaraddii ugu muhiimsanayd dalka haya, wuxuu inoo sheegay in ammaanka madaxweynaha iyo ilaaladu aan cidna ka qaadin, ilaaladana uu xaq u leeyahay cidna aanay ka qaadin. waxa kaloo inoo sheegay in amniga isagoo ayagu ay maxay u xil saaran yihiin, waxaa suuqa la soo gelinayaana ay been tahay oo wixiiba wuxuu ka dhigay been. subxaan allah. rasuulku inuu wax jiray oo cad oo ummaddu la wada arkaysa israa qaray oo ka been sheeg waa mas-uuliyad darro, waa diin darro, waa dadnimo darro. xisbiga kulmiye madaxdiisa iyo hoggaankiisa saaka arrintaa u fadhiyey, iyagoo u fadhiyey iyo wixii ay kale muteenna waxaa ka hadlay afhayeenka oo anigu ku noqon maayo, Mr. Buni baa ka hadlay oo ummaddana u faahfaahiyey. gaariga markay soo celinayeen qabaalka fiidiyowgan laga duubay waa kaa muuqday hortiina yaalla ee meel walba warbaahinta yaalla. horta waa mas-uuliyad darro in wax jiray dowladdeenni oo muuqdo cid waliba arkayso ay dafirto. waana ceeb. ayagaana u daranto dib aan cidi u aaminin, inta ku hadhayna aanay aaminin. aan ku noqda mawduuca. safarkii madaxweynuhu hore ee Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baxayay dibadda, maalintuu baxayay waxaan idiin sheegnay gaari lambarkiisa aan sheegay iyo noociisa oo guriga Khadar ka soo baxay wasiirka madaxtooyada Mr. Khadar in lagu khalkhalgeliyo waftigii madaxweynaha oo markii horena uu dhex cararay waftiga, markii dambena uu soo dhex cararay. waxaan idiin sheegay ilaaladii madaxweynaha in markii dambe uu soo dhex cararay ay qabteen oo ay isku dhaceen oo ku yidhahdeen maxaad markii hore noo dhex cararaysa imika noo sugaysa, oo halkaa la iskaga dhacay. Khadar waa maqan yahay oo ma joogin safarkii madaxweynaha ee Abudabi fashilmay buu ku maqan yahay. markii uu soo noqday Khadar isagoo arrintii ka xumaaday fashilantay ayuu afartii askari ee uu calaamadsaday dagaal la galay. waana ta keentay inuu amar siiyo in ilaalada laga soo xareeyo madaxweynihii hore. waa ta keentay in dacaayado isla maalintii madaxweynuhu duulayay ilaa maalmii ka dambeysay la geliyo suuqa la leeyahay airbortkiibaa hub lala galay iyo madaxweynuhu ciyaal u haystaa iyo ciidan buu wataa iyo caynkan. askartii ilaalinaysay baa dagaal lala galay. Khadar wuxuu adeegsaday oo uu isticmaalay oo weliba si xun uu isticmaalay Cabdi Madoobe oo taliyay ku-xigeenka ciidanka madaxtooyada imika laga dhigay oo ah nin horena meesha uga shaqaynayay u joogay. Cabdi Madoobe waa ninkii amarka siiyey askartii ee yidhi soo qaada. waa ninka ku handaday inuu mushaharkii ka goynayo ee kaba gooyey. waa ninka markii taliyihii joogay inamada xukumayay joogay guriga madaxweynihii hore uu ku yidhi warda aniga ciidankan layguma wareejina madaxweynihii hore lagu wareejiyo gurigiisa uu ka maqan yahay intuu imanayo suga isaga ayuu ku andacooday inankii guriga lagaga tegay.
haddii nabad wax ka tirsanaysaan ama la qaadayo annagu askar baanu nahay oo dawalana amraayo ma diidin amarkee dee madaxweyne gurigan maamulaya haydin yimaade isaga suga no baa layidhi wuu cararo madax wuxuu tegey cabdimadoobe haddana maxay meesha lagu dhahdo maxkamadda ciidanka waaran baaba soo goosto markay sheekadii waaran gaadhay ee annaguna aan ku qaylinay tallaabo la soconay ayaa ciidankii la yidhi soo ciidanka dooni maysan ha war xarawada annagaa isku filan oo ilaashanaya madaxweynaha oo dee madani baa ilaashan doona kol haddaa dowladdii ay sidaas samaynayso madani baa ilaashan doona markii shalay ciidankii la qaaday ee xalay madaniga yimi ayaa khalkhal dhacay saakana xisbigii kulmiyey madaxdiisi way fadhiistaan arrintii markay jir noqotay dhiiqa luga ay la galeen ayay ciidankii soo celiyeen saaka oo ay haddii alla kuu roon yahay ay wax walba fashilmeen ayay ciidankii soo celiyeen weliba yidhaahdeen ilaahay cibtina astro caynkaa iyadoo lagu heshiiyo qoladii kulmiyana aanay hadlin caynkaa lagu heshiiyey oo ciidankii iyagoo la galbinaya gurigii lagu celiyey markay arkeen dhiiqana lagaa la galeen ayaa haddana tani war isma haysee ayuu haddana cabdilxasan dheer hadlay oo wixiiba been ka dhigay waata keentay inuu buurano jawaabo sida heeday runta hayd uu sheego haddaba halkaa waxbaa idinka dhex muuqda reer somaliland markuu cabdalle leeyahay madaxweynuhu iyo isagiiba beri baanu ka nooma ogin waxaan dhacay halkaa waxaa ka muuqata in taladii madaxtooyadu ay u gacan gashay khadarna uu siduu doono uu isticmaalayo dalkana burburinayo kicinayo ummaddana iska horkeenayo siduu shalayba codadkiisii laga duubayey uu u lahaa dhallinyarada habar uu la hadla kiciyo kuwa garxajina hadla kiciyo isagoo bannaanka joogan dowladnimo gacanta ku hayn ninkii awood maanta hele maxaa malaynaysa cabdulla sandheere waxaan leeyahay inaadeer annaga iyo khadarna ilaahayna waa na yaqaanaa ummadduna wayna arkaysaa ka iyaga u lexe jecla ka qaba halkan intaasoo goorba annagu inaydan fashilmin ayaanu jecel lahay oonu idinka abhinaynaa waxa idiin keenaya dhibaato haddaanu dhibaatadiinnu waa dhibaatadayada shalay idinku dalkaa fashilinaysiin annagu dalkuunu fashilma ma jeclin dadka iyaguna isku dhaca ma jeclin in la iska horkeenana ma jeclin kay iska horkeenaya waanu ku qaylinayna kii iska horkeenaya markaanu fartaydin ku fiiqno eenu ku qaylinno haddaa intaa qarisaan dafirtaan oo annaga dhakadana isnaana dhakada ka saara cid kaloo beri ka ah idiin suuro geli mayso cabdallah waxaan ku leenahay dowladdii hore iyo adigu iskugu kahay mid baa tihi labaduba dowladdaydii weeyaan bilaash baanu ugu shaqaynaynay warkaanu ku siinaynay adigoo 2 bilood joogin baa maanta suuqa lagu hoos gubay amni baad ku faanaysaa berri toolana waxaa dhici doonta khasaarooyin ka badan in lagu geysto waayo daadka ku hoos maraya waanu ku aragnaa bilaash baanu warbixinta ku siinay haddii telefoonkaagu furan yihi waxba annagoon kaa doonayn oo dalkayaga ilaashanayna sidaan kuwa horeba u siinaynay maxamed kaahin si wax walba waanu iman jirnay waanu brief garayn jirnay warkaanu siin jirnay dabagale waanu siin jirnay taliya sirdoonka waanu siin jirnay annagoo muwaadiniino kumayaalah wixii xogana soo helo adigana waanu ku siin layno waa cadow ma tiido wasiirka iyaga iyo dowladdaydi baata laakiin dhagowma lihiduna cadow baanu aragtaan waxaa nasteex u aragtaan waxaa waddanka ka soo buuxsamay ee maanta hudheel walba jooga ee cadowgii somaliland lagu soo dhiiraday intii yaraday joogteen waxaan ku leeyahay been laguma difaaca dalka run baa lagu difaacaya annagu cadowgaaga ma nihin waxaanu jecelnay weliba inaanu kula shaqayno hadduu telefoonkaagu furan yoonu warka kusoo siino oonu ku dhaho halkaas keeg war halkaas keeg war halkaas keeg oo haddaanu been sheegayna aad aragto markaa waxaanu kuu sheegnay taasaanu diyaar kuula nahay cadowna kuma aragno laakiin cadowga kii dalka ku ahaa ee madaxweynahana khiyaamanaya awooddiisina isticmaalaya baad difaacsan bay ku difaacaysa ka daaban ku lehan aakhirana kuma fiicna iftiinkana kuma fiicna mas-uuliyaddaadana uma fiicna inaad waan kuu nasteexaynaya wax kale ku odhan maayo adiga reer somalilandna waxaan leeyahay cabdallah inoo sheegay inaan cero iyo isagu toona ogeyn wixii meesha ka dhacay cidda waxaa samaynaysaana waa khadar waa ninkaa gaarigii gurigiisa ka soo baxay maalintii madaxweynuhu dhoofayey lagu khalkhalgeliyey madaxweynaha waa ninkaa inamadii gaarigaa gurigiisa ka soo baxay iyo kuwii kale isku dhaceen ilaa maanta arrintaa u samaynaya waxaa u samaynaya waa ninkaa iyadoo dalkeennii dagaal nagaga socdo bariga oo in la qabsado magaalooyinkeenii ugu waaweynaa la doonaya si uu hargeysa isku diro oo ciidamo madani u sameeyo waa ninkaa sida fog aan u fikrayn sida dhow u fikraya
شاركي يا ودي دولة نمدة مدحونا استعمالية وانكو علينيا وحان لي هير ودنيو أنا هدا عدوغينا نواركتان عدوغينا مني هنا نستيحينا النهاية الماضي الريال اللي كقبط وضنك ونينو دامه وحيالا اللي مو وايني والعقود قبين كان الماضي الريال ninkaasi naxli buu qabaa xumaan baa ka buuxda wanaag umuu dhalan ilaahay baa wanaagiyo xumaanta dadka u kala dhaliya uma dhalan madaxweynahana wuu jebinaya miskiinka ah magaceedana wuu dilaya hargeysoo noqdana wuu iska horkeenaya taladiisu iska horkeenaya waa ninkaa isticmaalaya taliyayaashii isagoo amarka bixinaya wax ka weyn baa dhici doona haddaydaan maanta ka gaadhin ninka anigu idin idhi cabdallana waxaan leeyahay telefoonkaaga ha furaada cabdalla waan ku caawinaynaa annagu mar dambana waxaan inaad iska hubsan ama waxba ka jirin ummadda hala hor iman oo dhaaya xerada